بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ولا لي الكسود وهذا وحلقته قابنا يعني اسكو حسوسين سيدان بش رمضان بركيسان وقفا إذا سنلهين وحان كسو هذا قيبها دتكو قيب سمان بش رمضان قيب تي سديدات بان كب الله بين حلقة كوبا قيب سديدات وحوية الحائض haweenta caadada qabta bisha ramadaan ama caadada ay ku dhacdo dhiiga caadada xaraam buu ka yahay inay soonto kana ansixi maayo mana soon inay soontana uma banaano haday soontana soonkaasi ka ansixi maayo sidaa darteed markay dhiiga caadada ay qabto ama uu ku dhaco yani waxa weeyaan soon malaha waa qoftaasi waa qof afuran waa inay iska afurtaa haday soontana soonkii ka ansixi maayo sidaas marka waa in loo ogaada waxa la mid ah marka iyo dhiiga caadada dhiiga dhalmada oo dhiiga dhalmada ama nifaaska liiraado isagana waa la mid way laakiin hadii gabadhii ay taahir noqoto habeenkii yani maanta yani dhiigi bahay habeenkii bay taahir noqotay yani inta aan waagu bariyin ka hor haday taahir noqoto maalinkii kale dabcan way soomaysaa hadii iyadoo sooman yani maalintii gudaheed iyo dhiiga caadada u yimaado walow iyadoo 5 daqiiqo ama keer uu ka haray qorax dhaco yani waxa weeyaan soonkeedii waa jabay maalinkaasina waa inay soo qadaysaa soonkeedii waa jabay maalinkaasina waa inay soo qadaysaa way maalinkaasina waa inay soo qadaysaa qaybta sagaalaad ee qaybaha dadka waxa kamid ah haweeneyda uurka leh ama haweeneyda ilmo nuujinayso oo markaasi naftoodii u baqay ama ilmahoodii u baqay yani waxa u banaan inay iska afuraan oo soonkoodii ma aragtay ay jabiyaan oo soo qadleeyaan maalmo kale oo bisha aan ramadaan ahayn waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri inna allaha wada'a 'ani al-musafiri shatra as-salah was-sawm 'ani al-musafiri wa 'ani al-murdi'i wal-hubla nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam ilaahi wuxuu كردي قفكي مسافر كها صلاديه أفرتها نصبو كردي ماشو أفر كتكناي إنه لبك تكذو صون كان مسافر كان لجردي قفكي مسافر كإنه يعني صومه ولا جردي يعني واسكجبين كره هويني دي يعني أور كلاهيد يتين وجيني سنة أيجنا ولا جردي حديث أبو داود النسائي يترمذي ابن ماجه أنتم ويصوص عارن مركا قضاء يكون واجباي laakiin markaasi xaaladaasi ama ay naftooda u baqeen ama ilmahooda ay u baqeen waxa weeye in iska furi karaan qaybta tobnaad ee qaybaha dadka waxa weeye man ihtaja lil fitri lidaf'i darurati ghayrihi ka inqaadi ma'sum qof ay daruuro u geysay inuu afuro oo mesela inuu isbadbaadiyo qof kale mesela qof biyo ku dhacay ayaa inuu soo badbaadiyo u baahan yahay isaguna gaajo tacbaan leeyahayo hadee awoodiisiba tacbaana marka in uu cunto cuno si ugu qawiyeysto ugu xoogeysto si uu qofkaasi u badbaadiyo way u banaan tahay waa hadii markaasi xaajadu ay keento in uu markaasi yani u baahdo inuu si ugu qawiyo si qofka loo badbaadiyo maxaa qofka badbaadintiisu aad iyo aad bay muhiim u tahay qofka waana waajib markaasi inuu iska furo oo yani soonkii oo cunto culus marka ku xoogeysto uu soo saaro yani daruuro noocaas oo kala qofkii u geysana waxa weyn waxa u banaan in uu ma aragtay iska furi karo intaasoo qof oo aan soo sheegnay yani oo hadda qaybood yani haday iska jabiyaan soonka ama iska furaan lagu inkiri maayo sharciga ayaa u baneeyay sidaa darteed waxa weeyaan ma aragtay in la ogaado yani qaybahaasi dadku intaasoo qaybood bay ka koobmaan qaybta adiga aad kaga jirtaba inaad ogaato wixii xukunka sharciga uu yahay hada wabillahi tawfiiq jazakum allahu khayran ala husni istimaa'ikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh